الحمد لله على الإحسان وشكر له على التوفيق والامتنان، والصلاة والسلام على نبي العدنان وعلى آله وأصحابه الشجعان ومن اهتدى بهديه إلى لقاء المنان. أما بعد, we are the sisters of Istawsu bin Nisa'i Khaira, sisters who are united to spread the religion of Islam. We have prepared for you this beautiful program. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. alla weyne wuxuu yidhi ma waxaad u malaysaan inaan idiin abuurna ciyaar oo laidiin soo celinaynin xagga yaga. Allah subhanahu wa ta'ala says, do you think that we created you in vain and you should not return to us? عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق، متفق عليه. ibnu cabbaas waxaa laga wariyay asagii aabihiisba inuu yidhi nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee laba nimcadood in badan oo dadka ka mid ah waa ay ku kadsoon yihiin, waana caafimaadka iyo firaaqada, waxaana wariyey Bukhaari iyo Muslim. Ibn Abbas narrated that the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, there are two blessings which many people waste, health and free time, agreed upon. روى ابن حبان والترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam kama zuulaya inuu taagnaado addoonka maalintii yowmal qiyaama ilaa la weydiiye afar: cimrigiisii wuxuu ku dhammeeyey, jasadkiisa wuxuu ku baaliyeeyey, cilmigiisa wuxuu ku camal falay, iyo maalkiisa meesha uu ka keenay iyo wuxuu ku bixiyeyba. waxaa wariyay Abi Xibbaan iyo Tirmidiba. The messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, a servant of Allah will remain standing on the day of resurrection until he is asked for about his lifetime, how he spent, about his body, how he controlled, about his wealth, how he spent, and how he earned it. Narrated by Ibn Hibban wa Tirmidhi. كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ ومن الذي يرضي ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ ويا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ يزيد الرقاشي wuxuu ahaa mid ku yiraahda naftiisa: yaa kaa tukan doona geerida kadib, yaa kaa soomi doona geerida kadib, yaa rabbiga kaa raali gelinaya geerida kadib. intaa kadib ayaa wuxuu oran jiray: wardadii miyaadan u oynaynin naftiina oo aydan u dhawaaqaynin noloshiina inta idinka hartay. war midka ay geeridu tahay balantiisa, gurigiisana uu qabriga yahay, firaashkiisuna ay caradu tahay, wehelkiisana ay tixriga iyo aboorku ay yihiin, waxa uu halkaas ku sugayana maalinkii fasac weynaa yahay, xaalkiisa maxay noqon doontaa? قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يسد فيه عملي. ابن مسعود wuxuu yidhi allaha ka raali noqdee, kama qoomamaynin shay sidaan oga qoomameeyey maalin ay qoraxdiisu dhacday, ajalkayguna nuqsaamay uuna ziyaadin camalkayga. يقول العجل: يا ابن آدم، تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص عمرك، وأنت لا تحسن تظلم ما يدقيك وعندك ما يكفيك. wuxuu leeyahay cajli Allah u naxariistee, ibn aadamow waxaa gudanaysaa maalin kasta risqigaada adoo murugsan, waxaa go'aya cumrigaada adoo murugsanayn, waxaa dalbaysaa wax ku kibirgelinaya adoo agtaada yahay wax ku kaafinaya. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك،
وفراقك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. أخرجه حاكم. ibnu cabbaas waxaa laga wariyay allah ka raali noqday isaga iyo aabihiisa inuu yidhi suubanaha nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee isagoo waaninaya nin ka faa'iidayso 5 intaysan kugu imanin 5 dhalinyaronimadaada ka faa'iidayso intuusan gabow kugu imanin caafimaadkaaga ka faa'iidayso intuusan xanuun kugu imanin qaninimadaada ka faa'iidayso intuusan faqri kugu imanin firaaqaaga iyo fursadaada ka faa'iidayso intuusan mashquul kugu imanin noloshaada ka faa'iidayso intaysan geeri kugu imanin. waxaa soo saaray xaakim. It was narrated that Ibn Mas'ud said, the messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, be benefited from 5 before 5 comes to you, your youthness before your pyramid, your health before your sickness, your richness before your poverty, your free time before your poverty, and your life before your death. Narrated by Hakim. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. wuxuu leeyahay cali bin abi daalib allaha ka raali noqdee adduunyadu way raratay ayadoo sii jeeda aakhirana way raratay ayadoo soo jeeda labadooduna waxay leeyihiin wiilal noqda wiilasha aakhiro ha noqonina wiilasha adduunka maanta waa camal xisaab la'aan ah berrina waa xisaab camal la'aan ah. waxaa halkaas noogu soo ekaada barnaamijkay noo soo diyaariyeen walaalaha istawsuu binnisaa'i khayra walaalahaas oo ah gabdho ku midoobay faafinta diinta islaamka waxayna nooga hadlaayeen ka faa'iidaysiga wakhtiga. fadlan haddaad ku cusub tahay youtube channelkeena subscribe saar waana ku mahadsan tahay daawashadiina.